alaabaha muqdisho ayay ka keenaan waxaa laga yaabaa ninkan reer qardhoodka ah inuu Abu Dhabi ka keeno boosaaso degadii oo ka soo dejiyo canshuur iyo laakiin waxaad arkaysaa anigiigan waxaan arkay laba tukaan oo nin ka yimi Bay Bakool iyo nin reer qardhooda isku wax gadaya laakiin uu raqiisan yahay mar walbaba ninka ka yimi Bay Bakool oo macawiista ka soo qaad macawiisaha Soomaalidu aad baa loo xirtaa marka wadanka la joogo macawiis isku mid ayaa waxa arkaysaa ninkaana 100,000 oo Soomaali ayuu gadaya ninka kale reer qardhoodkan wuxuu galayaa 300,000 200,000 ayaa u dhaxaysa macawiistuna waa isku mid marka dadka marba waxay joos garaysanayaan marka kooda jaban waan weydiiyay duqa magaalada ayaan weydiiyay dhibka wuu jiraa buu yiri laakiin mar walba anaga waxaan raaligelin ka bixinaynaa dadka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in kooda raqiiska ah in uu laakiin iyagu badanaa cashuur bay bixiyaan laakiin cashuur aad xoog u badan ma bixiyaan waa warata u badan waxa loo yaqaan marka macnaheedu ma ahayn inuu ka dhiibaynin oo deeno ka banaanka dhigay ka kala warata way banaanku dhigtaa marka kuwana waxay leeyihiin xoogaa meel ay sameystaan bacalayaasha Soomaaliya magaaladan iyagoo dhan baa wada haysta meel walba aad tagto magaalada dadka Soomaaliyeed ee koonfurta ka yimi ayaa ka shaqeysta dhinaca kale ee waxa jira ormo badan oo Itoobiya maraan tagay Puntland ku arkay iyagoo lugeynaya ilaamiyada oo lugulaya taalaftigeed meeshan ka mid ah oromadaasi badanaa magaalooyinka qardho iyo ma joogsadaan aad waxay u tagaan magaalada Boosaaso iyagoo tahriibaya u sii socda halka Yemen iyo Sacuudiga marka magaalada qardho waa magaalo iska yar marka inay ka shaqeystaan mooyee magaalo ay ku gaban karaan oo ay joogi karaan ma aha laakiin waxay aadaan magaalada Boosaaso waana aragtay magaalada Boosaaso dekada magaalada Boosaaso markaan tago barnaamijyadan aan ka sameeyay dadka xamaaliyada wax dejinaya waa waxay u badan yihiin dadka Itoobiya ka yimid oromada waa gartay aad baad maasantay haddaynu dib ugu soo noqono barnaamijkeeni meeyarka waa kanoo bildhimadii wuu ku tusay waynu daawan dhinacii xoolaha miyaadan waxaad ku leedahay